Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ismaaciil. Bal ka waran mid ka mid ah bini'aadamka oo ehelkiisa la qaadanaya waqti aad u macaan, lana jooga mid ka mid ah maqaayadaha isaga oo la cunteynaya, isla markaana ay dhacdo xaalad aad u adag sida in ay duufaan soo weerarto, taasi oo burburinaysa dhismayaasha, dadkuna halaagaysa. Intaa kadibna uu ka badbaado hal shaqsi ama laba shaqsi, isla markaana ay noqdaan kuwo keli ku ah meeshaas. Dabcan waa xaalad aad u adag, laakiin taa beddelkeeda tani waa dhacdo la yaab leh, taasi oo u dhacday si xaqiiq ah. Laba nin oo ku noolaa duurka muddo 40 sano ah, iyaga oo ka fogaaday basharka iyo xadaaradda cusubba sida internetka iyo korontadaba. Tani waa qisada Hoven League iyo wiilkiisa Oleg, kuwa oo ahaa laba ruux oo ku noolaa keymaha muddo dhan 40 sano. Dabcan waxaad ka fikiraysaa sidee ugu suurto gashay laba ruux inay go'aankan qaataan, isla markaana ay duurka ka jeclaadaan nolosha basharka kale. Qisadu waxay bilaabatay sanadkii 1972 qoys ka soo jeeda Vietnam, kuwaasi oo ku noolaa tuulo yar. Qoysku waxay ahaayeen kuwo meel ku wada nool, laakiin diyaarad laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa duqeysay kuna garaacday tuulada saalbooyin ama gantaalo, taasi oo sababtay dhimashada dad badan, waxaana ku jiray xaaska Hoven League iyo 3 kale oo qoyskiisa ah. Hoven League waxaa soo wajahday murugo maadaama ay ka fogaadeen 4 ka mid ah qoyskiisa, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu duurka u cararo si uu isugu ilaaliyo isaga iyo wiilkiisaba. Mana uusan ogeyn in 41 sano ee soo socota uusan arki doonin wax bashar ah. Muddadaas kadib, Hoven League waxa uu go'aan ku gaaray inuu u cararo keymaha aadka uga fog kuna dhex yaala isla waddanka Vietnam. Muddo intaa la eg kadib, waxaa suuro gashay qolo sahmin ah oo sahminaysay keymaha Vietnam in ay helaan raadadka laba ruux oo ku noolaa meeshaas. Intaa kadib, waxaa la helay Hoven League iyo wiilkiisa, waxaana durbadiiba meesha tegay suxufiyiin si ay u soo tabiyaan qisadooda, mana aysan ogeyn inay duurka joogeen muddo intaa la eg. Sidoo kale, Hoven League wiilkiisu ma uusan ogeyn inay jiraan wax bashar ah oo ka soo haray isaga iyo aabihii, kuwaasi oo ku nool dhulka, halka aabihii uusan u sheegin arrintaa. Mid ka mid ah saxafiyiinta ayaa la joogay muddo 5 maalin ah si uu u ogaado sida ay u suuro gashay in duurkaasi ay ku noolaadaan muddo intaa la eg. Waxa ay guri ka samaysan jireen alwaaxyada iyo caleemaha geedaha, sidoo kale waxay cunto ka dhigan jireen xayawaan alle xayawaanka ay arkaan. Sidoo kale waxay biyo ka heli jireen webi u dhowaa keynta. Hoven League si fiican uma yaqaano luqadda, balse wuu fahmayaa, sababtuna waa ka fogaanshaha uu ka fogaa bulshada. Laakiin wuxuu yiri, waxaan arki jiray maalin walba buundo maraysa dusheeda, balse ma oga inay tahay diyaarad sida dad iyo duunyaba. Sidoo kale waxa uu sheegay inta ay duurka ku noolaayeen inay degeen in ka badan 5 meel oo ka mid ah keymaha, waxayna guryaha ka dhigan jireen meel ka sareysa dhulka si ay uga badbaadaan xayawaanada halista ah. Sidoo kale waxa ay barteen sida loo sameeyo dhammaan hubkooda, kuwa oo ay isku difaaci lahaayeen kuna argoosan lahaayeen. Intaa kadib, Hoven League waxaa soo wajahday mushkilado badan sida in ay la sheekeysan ama aysan dhexgalin dadka iyo dhammaan waxa hareerahooda ah. Sidoo kale, Ling ma uusan ogeyn in waalidkii uu weli nool yahay. Sidaa daraaddeed, Ling waxa uu jeclaa inuu u laabto noloshiisa hore maadaama uu la qabsaday. Ama wiilkii waxa uu bilaabay inuu dhex galo dadka lana qabsado, aad ayuuna ugu riyaaqay. 1 sano kadib, Ling waxa uu raacay markii u horeysay diyaarad sahmin ah si kor looga tuso meesha uu ku noolaa, laakiin markii uu arkay quruxdeeda aad ayuu uga riyaaqay. Waxa ay ku degeen jasiirad u dhow halka uu ku noolaa muddada 41 sano. Arrinka aad ayuu u farax geliyay, wuxuuna bilaabay inuu maskaxdiisa dib u celiyo soona xasuusto xasuusihii hore. Sidoo kale, Ling waxa uu tagay badda, waana markii ugu horeysay ee noloshiisa uu arko dhan, isagoon ka fikirin biyaha inay dhanaan yihiin iyo in kale. Intaa kadib, waxaa haddana la geeyay magaalo ka mid ah Vietnam, wuxuuna la cajabay dhismayaasha aadka loo qurxiyay iyo suuqaaqeeda. Laakiin Ling aakhirkii waxa uu ku laabtay keynta, waayo aad ayuu u jeclaa ku noolaashiyaheeda.
laakiin keyntu waxay noqotay meel caan ah, dadka Vietnamna aad ay ugu soo dalxiisaan. Haddaba daawade, ma ku noolaan lahayd hal isbuuc keymaha adigoon haysan tiknoolajiyad iyo korontaba? Inoogu reeb faalo yar qaybta kommentiga. Mahadsanid.